qayb ka mid hilibkiisa soo jarjarmay ayay ku cadeynaysaa gudoomiye meeshan dhabarka wixii ka baxay waaye 15 Juulaayo bishii ina dhaaftay ee sanadkan 10kii habeenimo ayuu nolosha waayay Dhame Ciidiid Maxamed Cali oo ahaa abaanduulihii ururka 83 ee guutada 14 Oktoobar Maxamed Xuseen Buule iyo Aadan Isaaq Yaro waxa ay noqdeen gacmaha loo adeegsado dilka abaanduulahoodii marka hore aan u dayno xeer ilaaliye Cabdicasiis Cusmaan Cabdiyare bilowga ilaa dhamaadka dhagartii uu ku baxay abaanduule Ciidiid حسن حسمي وحود دياري يمينه السجو أديك سنايو نحمرايو إذا سناشان محكمة دهور فدي حسن من هذا مركو دياري من هذا personal attack وعلى هذا أو من هذا هالقف ماشي له وحره كل قبيل أيا فدي وشريح دوره حسن مركا من هذا مركو دياري وحود يبي إذا سند الشناد فاضمو الشيخ علي oo loo yaqaan Faadum Mushani oo ay sanad maqana ah ee sanadaas meenadii ay ku xigso qaatay deegaanka Mushani waxay soo galisay degmada Janaale marka waxa la baaraa odayaasha waxa la baaraa dhalinyarada marka deegaanka labada urur laba dhinac kala degan ururka 66aad ee guutada 14 Oktoobar iyo ururka 83aad laba gees kala degan labada geesana la soo galay magaalada sideedaba dhanka kalena waan leeyahay xirantahay lama soo galo markay soo galayso oo qofku soo galaayo odayaasha iyo sheeg dhalinyarada iyo wax walba qof walba oo soo galaayo waa la baaraa arxan laawayaashii qawaaridta ahaa iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaas waxay sameeyeen inay dhaxmaraan oo ay adeegsadaan sanada shabaabada ah ee qawaaridta ka tirsan Faadumo Sheekh Cali Faadum Mushani goobtii ay ka soo qaaday waxayna ka soo qaaday Xasan Jibriil oo horjooge qawaarij ah Xasan Jibriil Faadum Mushani oo soo dhiibay Faadum Mushani waxay sameysay inay goobtii soo galiso oo isbitaalkii Janaale ay keento meenadii lagu dil lahaa marxuum Dhame Ciidiid Maxamed Cali markii ay keentay kadib meenada halkaas waxa ugu yimid oo Xasan Jibriil uu wacay Jibriil Aadan Cali oo ah aabiis marka maxaa waaye Jibriil waxa waaye horjooga nabadoon waaye horjooga dhaqameedka qawaaridta waaye beeshiisa uma dooran nabadoonnimada qawaaridta nabadoon ka dhigtay marka nabadoon maahan waa horjooge qawaaridta u qaabilsan inay baad uga soo qaado iyo lacagaha ay rabaan iyo waxa soo dhan inuu uga soo qaado deegaankaas Janaale iyo beeshiisa Jibriil marka wiilkiisa soo wacay aab wuxuu yiri meenadii waa lagu keenay waxay taalaa isbitaalka gabadhaas aad kala wareegaysaa gabadhii odayga ku wareejisay odayga iyo eedeysane Aadan Isaaq Yaro oo ciidanka xooga ka tirsan iyo eedeysane Maxamed Xuseen Buule Ibrahim oo ciidanka xooga ka tirsan maalinta meenada la keenayo maalinka ka horeysay ayaa la isku xiray saddexdooduba hal guri la isku keenay hal guri ku wada shireen hal guri lagu wada hadlay qaabka meenaas loo gali lahaa xiradaas ayaa laga shiray marka sheekadu waa isku xirneed way diyaarsaneed Jibriil meenada ayaa loo keenay meenada ayuu qaaday Aadan Isaaq Yaro wuxuu ugu wareejiyay isbitaalka degmada Janaale isbitaalka marka Aadan loogu wareejiyay Aadan baashi uu qaaday laba biri wuxuu ku hayay gurigiis Aadan waa xaasle laba caruur leh miino lagu dili lahaa abaanduulihiisa qiimaha badnaa ee cadawga qawaaridta maalin kasta roonto ku hayay ee dhibaato ku hayay meenada lagu dili lahaa ayuu loo bir guriga ku haystay marka caruura guriga ku nool xaasa ku nool waxa soo dhan xataa uma nahin Aadan waa marka arxan laawniisa eelkay gaarsan tahay ay tilmaamaysa Aadan ka sheegay waa salaad koofin kala yaqaan marka Aadan laba bir kadib meenada ayuu qaaday wuxuu la sugayay marka laba bir meesh ma aan leen wuxuu la sugayay Maxamed Xuseen Buule oo marka aad maalintaas markuu soo laabtay ayaa loo dhiibay Maxamed Xuseen marka maxaa u asay Maxamed Xuseen waa ninka xirada maalintaas ku qornaa albaabkeeda ee gaandhiriga meesha fadhiyo albaabka waardiyaha saxda ah siriiriga lahayo oo cid la soo deehayo cid soo galayso cid xirada maamulayso waxa soo dhan la socod albaabka koowaad joogay
marka maxamed xuseen ayaa isku soo aadiyay waardiyi asoo joogaan loo geeyey baashi miinada marka loo geeyey maxamed xuseen wuu qaaday aadanna wuu raacay maxamed xuseen soo baashi u waday wuxuu la aaday tali ururka oo markaas xerada ku cusbaa sheekh yuusuf la yiraahdo ayuu rabay in ay ugu dhajiyaan gurigiisa tali ururka marka xerada ku cusbaa qaabka xerada ma yaqaano nooca ay tahay ma yaqaano askarta sifac ma kala yaqaano marka waxay sababtay in uu tali ururkii asaga oo maqan laakiin uu u fadhiyo nin malaga oo hadda aan keen doono oo ciidanka xoogga ka tirsan oo la yiraahdo cali nuur salaad oo fadhiyo ayuu 5 mar ku laabtay waxa ku laabanayo maxamed xuseen buule ibraahim maxamed marka intuu uu laabanayo ujeedku kale waxa waaye ninkaas oo xiradii ka mashquulo ama ka bax bis u raadinayo laakiin se askarigaas oo shaqadiisa si fiican u gudanayay oo mas'uuliyadii ka saarneed inuu ilaaliyo taliska dhan gudanayo xeradaas gooni meesha uu degan yahay tali ururka ilaalinayay waxa u suurtagal weysay maxamed xuseen in uu u dhigo miinada tali ururka loo magacaabo sheekh yuusuf marka loo dhig waayo maxaa dhac marka in gudoomiye option 2 yaa ka dhiganaa lagu fikiray waxa soo jeediyay option 2 in laga dhigo xasan jibriil aadan cali oo horjooge khawaarijta ka tirsan oo soo jeediyay in option 2 laga dhigo hadii ninkaas u gal waayaan abaanduulaha ama tali xigeenka roonto ku maqnaay gurigiisa wuxuu ahaa guri ay ka maqan yihiin staafkiisa meesha uu ka degan yahay qolka uu ka degan yahay marka waxa dhacday in qolkiisii loo xiro oo loo dhigo qaabka u fadhiistan la soo hubiyo hubiska iyo in la soo hubiyo meeshaasna waxa asagoo oo kuma marsiyoonaya fasax geeyay oo soo hubiyay maxamed xuseen buule ibraahim wuxuu yiri naagtayda iga xanuunsan caruurtayda iga xanuunsan waa maalinta miinada la dhig rabo habeen hal saac la dhigay maalinteeda waay markaas wuxuu yiri tali ururkan fasax waa ii diiday tali kooxan fasax waa ii diiday waxaan rabaa inaad fasax abaaduuli asiga oo ka damqanayo damiirka bil aadnimadana markaad fiiriso qof askari oo ku dhaha naagtayda iga xanuunsan heerka macnaa aad damiirnimo aad gaarayso markaad fiiriso wuxuu halkaas ku go'aansaday inuu fasaxo marka qofkii uu gargaarayo saas uga naxay ayuu qaab koofir wuxuu kala ujeedada uu kala ma aha macnaha inuu naagti wuxuu ka sheegay ma waxa waaye ninkaas oo u fadhiista sirtiis intee taala qaabkee loogu dhigi karaa intee ka macda inuu noolaado ninkaas oo meeshan ka fakado inaysan dhicin darteed ayuu miinadaas wuxuu u galiyay dhabarka dambe ee sirtiis miinada markuu sirta ku dhajiyay mid gudoomiye uu ka soo tagay hal saac ayaa miinada la dhigay 4 saac iyo 20 4 saac iyo 15 daqiiqo 4 saac 20 meelahaas ayuu soo galay abaanduuli asagoo ka soo xarooday ciidamo askar ah oo laga soo cabtay oo dadka ay ka soo cabdeen oo burcadnimo iyo waxaas lagu tuhmay ciidankii soo xiray qaarkoodna saldhigoo ku xiray qaarkoodna xerado ku xiray kadibna meeshiis ayuu galay ileen shaqadii waajibkeedu qaranku u hay uu soo gutay taliyeedid marka meeshii uu soo galay oo xiradii fadhiistay waa la hubiyay yaa hubinaayo maxamed xuseen buule ibraahim laakiin remote controlkii mobilka laga wacaayo ma soo bandhigi doonaa nambarka waxa hayay salaad koofi oo ah eedeysanaha labaad aadan isaaq yarow salaad koofi loo yaqaan salaad waa ku juryaaniki waa diyaar shaqadaada qabsaalda salaad nambarka ayuu wacay halkaas ayaa lagu dilay almarxuum al-shahiid dhamme ciidid maxamed cali saas ayay miinada ugu qarxday naqsadeeyaha falkan guracan waa xasan jibriil aadan cali oo maqana ah waxa uu fursad ka dhaxelay khawaarijta sababahan dartood waa mar walaalkiisa ay dhaafiyeen nolosha geesiyaasha qaranka waxa uu ka tirsanaa khawaarijte waa mar kale aabihiisa oo ah qofka saddexaad ee kiiskan ahna gacanta koowaad ee ku soo sintay bamka aadan iyo maxamed oo kala qaba gabar uu adeer u yahay jibriil iyo mid la dhalatay waxaana lagu kala magacaabaa nala iyo barwaaqo ku darso waxa uu dheer inuu ahaa nabadoon maqaar saar ah oo ay khawaarijta u soo samaysteen jufo hoosaadkiisa
أسكي ماليدو ما يتكشغلها أنا شبابته توكل الجوا كي كلام مثلا كي كان قال من أنت مجرد قال ورندي ها تقول ما أقول من دارين ما أقول يا كل شيء أي كان شيء ما جرى من قال ورند وشهيدي شهيدي أي كان لكن مو يعني cabdilatiif aadan cali oo ah eedeysanaha lixaad iyo walaalka jibriil ayaa noqday furaha koowaad ee laga helo ururka 83aad waxa uu siiyey gabadhiisa aadan waxa uuna aqbalay shaqada wiilkiisa xaabsade iyo wiilka uu adeerka u yahay ee xasan xaabsade iyo xasan oo u soo baasay shaqadan xun aabayaashooda ayaa ugu dambeyn helay xarig ay ku kala dhantaali karaan isku xirka ururka iyo kaalinta nabadeed ee guud ahaan guutada 14 Oktoobar gobolka Shabeellada Hoose ku leedahay waxaase xusid mudan in 14 Oktoobar ay ka asaasantay musiibadii qaraxii 14 Oktoobar 2017 ee Zobe maxamed cabdullaahi khaliif ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sharaxayo sida ay isku leeyihiin eedeysanayaashan ku midoobay xariga guurka balse hadafkoodu ahaa farsamo argagixisanimo mudan guddoomiyey garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha lagu magacaabo cabdilatiif aadan cali iyo jibriil aadan cali waa walaalo waana ninka labaad ee ugu da'da weyn shabakadan wuxuu jiraa 57 sano mudan gudoomiye cabdilatiif janaale qawaarijta ayuu muxuu ahaa dadka shacabka u geeyaa waa u khidmeeyaa sidoo kale gabadhiisa isaga uu dhalay oo lagu magacaabo naley cabdilatiif wuxuu ku daray eedeysane aadan isaaq yarow wuxuu ku daray aadan isaaq yarow gabadhii isaga uu dhalay waxaa marka cajiiba mudan gudoomiye jibriil aadan iyo cabdilatiif aadan waxaan rabaa inay maxkamaddu linkiga sidaas u fahanto linkiga oo ka dhaxeeyo muxuu ahaa eedeysanayaasha cabdilatiif oo 57 jir ah iyo jibriil way isla dhasheen walaashooda oo barwaaqa lagu magacaabo waxay ku darsadeen eedeysanaha koowaad oo ah maxamed xuseen buule eedeysanaha cabdilatiif isagana gabadhii uu dhalay wuxuu ku darsaday eedeysanaha labaad aadan uu ku darsaday markii arintaas la sameeyay macnaheeda ma aha inay muxuu ahaa dadku ay bataan shaqadaas ma aha oo ilaahay ugu talgalay inuu yaani gabdhaha iyo wiilasha markii la isku daraayo laakiin waxay ahayd inay linki ka dhaxeelaan xerada dhexdeeda inay ka helaan linki fiican oo shaqadan ay hayaan 14 Oktoobar lagu soo afjaro bil ficli way sameeyeen mudana gudoomiye da'da intaas leeg 57 iyo 64 ma dhawa da inta ka dhow ma xajmiga ay leedahay da'daas ay sitaan ayay haddana ku fikireen inay shabaabka la shaqeeyaan ay gabdhahoodii iyo walaashoodii ku darsadeen shabaab qarax eedeysanaha muxuu ahaa jibriil uu dalbaday wiilkiisa xasan ka dalbaday in loo keeno waa loo keenay askartu u dhiibay abaanduulihiya meeshaas hoosta loogu geliyay mudana gudoomiye waxaan u maleynayaa inaysan da' kale u dhinnayn balse waxa ayaan darro ah in xilligan oo ahayd inay iyaga ummadda naftoodana ka badbaadiyaan shacabkana ka badbaadiyaan waxa ay dhaleen ay iyaga cagsi noqdeen mid ka mid ah ilaalada taliyaha ururka 83aad ayaa isna maxkamadda uga jawaabay sida uu ahaa dhaqanka maxamed xuseen buule oo markii hore u dan lahaa in taliya ururkiisa uu dhameeyo antu saqara hadeen ka hore anigoo waardi saaran maxamed xuseen buule nan la dhaha ya saddex jeer amal ugu soo noqday doorka afaad way ugu soo laabtay say wax ka yiinaan dhahay tali ururka ma joogo meesha kaliya fadhiya hurun koowaad u jira hadda u baahanta aadan ku dhahay markii shanaadu ugu soo laabtay tali ururka miyimid ugu dhahay waan afligaaday waliba tali urur hooyada ma aqaan iga tagan ku dhahay waardiyan ka hista meesha waka adi markaas waxa waardiinaysa waardiyan saarna iridda tali ururka iyo waardi ka saarna tali ururka meesha uu degan yahay tali ururka harada dhaxdeeda meel gondoob ah oo sal ku wareegsan uu degan yahay irid yar oo laga galay leedahay marka oo sala ku xiran bartankaasaan fidhi aniga marka wuxuu ku weydiinaa tali ururka aaway niyow waxba si kaaya ni tali urur doorkii shanaad waa marka afligaadeynay anti ka hore askari aadi askari leeyahay marka dambe waan ku xanaagay waxaan dhahay tali urur hooda ma aqaan iga tagani meesha shaqan ka haystaa
وكا markaas wax ma wataa caadi ku maaha يا wax ma wadaa مية دريس محرنين isagoo dhar shibila qaba go weyn garba u saaran uu iimaanay khabiir qaraxyada ah si gaar ahna ururkan la diiwaan ah ayaa maxkamadda u sharaxay nooca qaraxyaraadkii uu reebay miinooyinka la farsameeyay waxay u qaybsamaan saddex mid waxa waaye waxa la yiraahdaa dhibana maamulal ah midna waxa la dhahaa amar midna waxa la dhahaa ten marka waliba xataa inay nooci amarka tahay halkaas waxa ka dhacay in nooca amarka ayaa ii soo baxday cadeymaheedina waan aruuriyay markaan aruushana waxaan ku wargeliyay taliyaha guutada iyo taliyaha ururka ayaan ku wargeliyay waxaan ku iri halkaas waxa ka dhacay ma aha hoobiye ma aha 7 ma aha bamba ku qaraxday banaha waa noocaas halkaas ayaa ka dhacday waxaas ayaa ka dhaceen saas ayaan warbixinta u la wadaagay taliyaha dibadeed wuxuu dhahay cadeymihii ma aruurisay ها إيروا كوا وشي عدميه وهايا مركز كبعدنا عدميه ينقاطي تلسك أوروكان تليها أوروكان ويري جودها عدميه الكاس كده عينا إن النوع عاس أي تاي من هذا معمل كأه وها عدينا يو وحياة هاس أو فريخلا بريلا صجرة وها عدينا وها من هذا إن تاي من معمل عدينا يو waxaas waa waxa la soo jiray bira la soo jiray baaruudi balaag border ka aheeday oo madowga aheed meesha ay ka dhacday qarax uu ka dhacay waxay noqotay madow waa baaruud macmalaho la farsameeyay oo waxyaabo kiimikaada iyo dhuxul iyo isku soo diray oo waxay cadeeyeen meeshii waxa ka dhaceen ay baashi ka qaraxday waxay noqotay madow waxa ay cadaatay marka baaristayda markaan dib aan u baaray waxa ay cadaatay inay tahay baaruudaas nooca balaag borderka loo yaqaan oo macmalka ah oo la farsameeyay ay tahay tanna ay tahay birihii la soo jiray oo ma taqaana ay dhibanaha inay ku waxyeelayaan ay ugu tala galeen ay tahay waxa kale ay cadaatay calaamadan inay tahay waxyaabihii mobilka oo ku jiray la soo wacay ay tahay ay cadaatay halkan waxa ku jira baasha marka la farsameeyo farsamooyin badan ay leedahay waxay leedahay alaabta meel lagu shubay rabtaa weel ayaa la yiraahdaa container la yiraahdaa waa kana cadeymaheeda waa kaasa waa geedkii ay ku jirtay qalabkan oo dhan marka la isugu geeyo geedka la isugu geynayo waa weel la yiraahdaa containerna waa la dhahaa marka taas ayaa ay cadaatay waliba dhibanahan ninka adeegsanayo oo dhibanahan inuu dilo ugu tala galay waliba nin si fiican u yaqaan dhibanaha inuu ahay oo dhibanaha inuu taagan yahay inuu jiifo inuu fadhiyo aqoon u leh ayaa dhibanaha dhibaatadan geystay sababtoo ah ninkan odaga ah oo taliyaha meesha ah habeen kamida sida badan habeen dhaaf waa soo jeedi jiray wuuna fadhiisan jiray fadhi ayuu fadhi jiray xoogaa ayuu mataqaanaa waqtigiisa fadhi ku qaadan jiray marka waxaa lagu cabiray fadhigii uu asaga fadhiyay ayaa lagu cabiray halkaas dhabarka ay mataqaanaa loogu aadiyay dhabarka dusha meesha guriga uu deganay ayaa dhabarka loogu aadiyay fadhigiisa ayaa lagu cabiray waliba marka fadhiga lagu cabiray dhaqdhaqaaqiisa qof la socoto dhaqdhaqaaqiisa oo mataqaanaa inuu meesha fadhiyo inuu baxay inuu joogo og ayaa hagayso oo taleefanku hagayso ayaa mataqaanaa dhibanahan waxyeeladeeda gaarsiisa sababtoo ah qof ka maqan oo meesha ka maqan ma geysan karin dhibaatadan ma geysan karin amba lama socon karin xaaladiisa laakiin inuu ku jiro qolka oo fadhiyo qof og ayaa mataqaanaa ku wacay waliba meenadan nooca loo yaqaano oo amarka waliba taleefanka awa oo taleefan laga hago xaqiiqdeeda markaan aniga aan baaritaankiisa intaas ayaan ku ogaaday madaxda iga sareysana waa la wadaagay intaas ayaan aqoontayda iyo in ka badan mataqaanaa aan ku ogaaday dhiiriga aan ku ogaaday waxyaabahaasna waa waxyaabaha aan usoo tababartay oo aan inaan cadowga uga hortago aan usoo tababartay waayo waana ku shaqaynaya antii nafta ay ugu jirto insha allah baarahan wakiilka ka ah milatariga Soomaaliya ayaa isna maxkamadda u bandhigay in eedeysanayaal Maxamed Xuseen Buule iyo Aadan Isaaqiro ay ahaayeen asalkooda argagixisaan marin habraaca isbaryeelida gudoomiyaha Soomaaliya markii aan baaris dhab ku sameynay kiiskani ka qornay eedeysanayaashan iyo saraakiil iyo askar ka tirsan ururka 83
markii aan tagnay goobtii dembiga uu ka dhacay kana soo aruurnay xogtii iyo haraadigii qaraxii lagu dilay naxariistay Caydiid Maxamed Cali oo ahaa maadulihii ururka 8 guuta 14 Oktoobar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii aan wareysanay khubarada miino baarista noo cadeeyeen nooca uu yahay qaraxa iyo markii aan aragnay shahaadada dhimashada iyo sawirka marxuumka markii aan aragnay qiraarka maxkamadeed laga qoray 3 eedeysane markii aan qiimeynay qaabka ay wax u dhaceen waxaan u cadaatay mid gudoomiye ka soo reeyal in eedeysanayaasha kale ah koowaad labaad saddexaad iyo labada maqanaha iyo gabadhaba ay si bareer cad ay u dileen amaadulihii ururka 8 oo ahaa sargaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dowladda Soomaaliya ku bixisay juhdi iyo waqti loogu soo tababaray dalka dibadiisa gudaha ay si fudud ay u qurxiyeen eedeysanaha koowaad eedeysanaha labaad oo ah aadan isaaq iyo bare oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed horey uga mid ahaa ururka Al-Shabaab wiina ka muusan bixin ururka Al-Shabaab meel uga baxay ma jirto habraacyada u diyaarisay dowladda Soomaaliya muna soo marin mudane gudoomiye ka soo reeyal eedeysanayaasha koowaad labaad iyo saddexaad iyo labada maqanaha hore falkaasi ayaa geystay waxay u geysteen waxa ka yar lacag aan dhameen $600 in loo dhaafsiiyo nafta taliyihii amaadulkii ururka 8 kabtan Maxamed Caydiid Cali ee si cad u qurxiyeen 3 eedeysane xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in lagu wada xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ku tixaneedooda mana ka tegin xafiiska laba maqana ah oo liiska eedda ku jira ee kala ah Jibriil Aadan Cali iyo Faadumo Sheekh Cali Faadumo Mushaani Faadumo waxay ahayd haweeneydii keentay qaraxa isbitaalka Jannaale waa kan Cabdicasiis Cusmaan Faarax Cabdiyare ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida eedan waxaa ku cad 6 eedeysane 5 kamid ah waxay ku eedeysan yihiin dilka marxuum dhamme Caydiid Maxamed Cali oo ay dileen 15 bishii 7 2024 qaabka loo dilayna waa soo sharaxnay xeeraliyo guud ma sharaxay anina meeshaan ku sharaxay qaabka loo dilayna waxay ahayd qaab wuxuusnimo ah marka si kala aad u eegto waxa la dhaxmaray oo la adeegsaday oo loo adeegsaday ciidankiisii uu xukumay ayaa loo adeegsaday waxay ahayd xataa dad kale hadii ahalaayeen waxay iska ahleed wax iska macquula laakiin ciidankii uu xukumay inay howlgalkii qawaaridta lagu xoreeyay ay dabardaaca ku noqdaan waayo waxaan u taagnaa kiiska culeyskiis waa kaas iyo qaabka wuxuusnimada leh ee ula dhaqmeen eedeysanayaashan abaanduulkii ururka 83 guutada 14 Oktoobar mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan sharaxnay oo mid u sharaxnay eedeysanayaasha goobta eedeena ka muuqdo eedeysanaha koowaad alif leh xooga 24767 Maxamed Xuseen Buule Ibraahim waa 40 jir ciidanimada mar hore ku soo biiray waa nin khabiir ku ah qaabka ciidanimada iyo ujeedada iyo xeerarka laga rabo waa nin dhowr mar loo celshay feel celin la baray waxyaabaha loo feel celinayo inay wax ka qaldan yihiin mudane gudoomiye asaga iyo dable xooga 35956 aadan isaaq yarow barre salaad koofi loo yaqaano iyo Jibriil Aadan Cabdi iyo Xasan Jibriil Aadan Cali iyo Faadumo Sheekh Cali Faadumo Shaani waxay intaasba ku heshiiyeen dilka asalka oo ahay taliyo ururka 83 guutada 14 Oktoobar laakiinse waxay dhaheen Soomaalidu kuma maada bun hadii la waayo bedelkiisa leela marka taliyo ururka maadaama la waayo bedelkiisa wuxuu noqday abaadul qawaaridtu ma kala socon macna taliyo urur iyo abaadul ma kala socon qofka ay ka dhigayaan waa qofka labaad waa ilaahu muuxirada xataa iska soo galo waad ogtiin waxa ay leeda ka sameeyeen waad ogtiin waxa ay soo baka sameeyeen ma aha shacab in loo dalliya macna ma aha waxa shacab in aan la reebin macna waxa la rabo waa hadii la waayo qofka meesha ay u rabaan qofka kale oo bedeli karo shacab ahaado askari ahaado waxa rabaa only waxay rabaan hadal haynay rabaan mudane gudoomiye marka nimankan askarta ah waajibaad culus ayaa saaran maxaa yeelay qoraya loo dhiibay waa loo cabeeyay waxa loogu talagalay qawaaridtu nool dagaalam bedelkeed inuu ku soo laabto abaanduulkiis oo hatta xabad uu ku dilinay miino uu ku dilo soo u baabo asiga dhan oo biraha aragteen feeraha ka galsho waaye ninkan u taagan cadaaladiisna raadin gudoomiye marka sanaashan shanta ah sida 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed uu qabo
waxaan caddeynay qaabka dilka ay u geysteen mudul gudoomiye marka caqliyan loo fiirsho bas oo qofka caadiga ah oo sharciga aan baran loo sheekay kiiskan wuxuu durbaba iska gaarayaa go'aan cad oo aan shaki lahayn maxaa yeelay yaa isku xiray waa cadeen yaa ka dambeeynaysaan dhacdo waa cadeen intee laga soo abaabulay waa cadeen deegaanka too ahaa waa cadeen odayaashan xiran oo jibriil aadan iyo cabdiladiif ilmahooda maxay yihiin waa cadeen naaga gabdhaha ay dhaleen maxay yihiin ayagana waa cadeen maxay ugu shirqooleen ciidanka inay naagaha iyo wiilashooda oo shabaab ah gabdhahoodana ay askartii dowladda ay ku daraan si loo shirqoolo oo loo baabaasho oo jannaale ay ula wareegaan qawaarij halkaasi ka shaqeeyaan nimankan odayaasha aad arkayso 60 jirada mudul gudoomiye marka maadaama intaasoo dhan aan caddeynay maadaama aan keennay goobtan berihii wax dhaceen maadaama goobtii aan booqannay oo soo aragnay waxa si ay yihiin maadaama khabiir dhan oo ku takhasusay miinooyinka oo ciidanka xoogga ka tirsan guutada 14 Oktoobarna ka sii tirsan aan keennay goobtan u sharax maadaama habeenkaasi dhaqdhaqaaqa ka jiray xirada uu sharaxay Cali Nuur Salaam oo ah askariga istaafka taliyaha meeshiis waardiinay marka mudul gudoomiye intaas marka la isku soo ururiyo waxa ku soo baxaayo inuu faldambiyad dhacay sida 110 uu qabo xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed faldambiyadkana dadkii geystay ay yihiin eedeysanaashu u xiran maadaama marka intaas aan cadeynay gabagabadina aan joogno waxaan codsanaynaa iyadoo xeerarka aan codsanayno ay cad yihiin waxaan codsanaynaa mudul gudoomiye alif la xooga maxamed xuseen buule ibraahim dab la xooga aadan isaaq yarow salaad koofi eedeysane jibriil aadan cabdi xasan jibriil aadan faadumo sheekh cali in si wada jir ah ay ugu xukunto qodobada aan ku soo deen oo kala ah qodobka lixaad faqradiisa labaad ma la galaha shabaab baa lala shaqeeyey waa caddeen saddexaad tababarro ma qaateen tababarray qaateen waxay qaateen qaabka miinada loo soo qaado naftirkeedu waa la bara qaabka loo qarinaayo waa la bara qaabka loo geeyayo waa la bara xiriirka waa la sameeyaa saddexaad marka waa dhacay qodobka toddobaad wuxuu ka hadlayaa heesashuhu uma dhacay waa dhacay waxaa la hayay miino dad shacab ah hayay waxaa hayay shabaabka qawaaridta ka tirsan waxaa hayay askartii marka taas way dhacday isticmaal ma la isticmaalaha abaanduuleeni qiimaha badnaa ku bax ceediid maxamed cali ku bax dhammihii dhammaaya ku bax taliixigeenkii guud ururkaas oo dhan ku bax mudul gudoomiye oo howlgalladii waxaas oo dhan qaabilsanaa ku baxay marka ma dhacdo way dhacdo 18aad ma dhacdo waa la isgacan siiyey waa la soo qaaday waana la wada keenay ka qayb qaadashana way dhacday meeshaas qodobka marka iyo sida la isku saaro waxa ka dareemaysaa inay isleeyihiin kan ugu daran oo dhacay maxaa waa 434 dhacay waxaan weynay abaanduuleyna weynay oo ururkeena ka tirsanaa oo guutada 14 Oktoobar ka tirsanaa abaanduulihii jannaale xoreeyey ee jannaale dhan seef ka dhigay yaa dilay shanta eedeysane ee aan kor ku soo sheegnaa wada dilay qadla jamaaciya dhacay sida baabkul fiqi uu qabo mudul gudoomiye marka waxaan codsanaynaa in dil toogashaa lagu xukumo waxaan codsanaynaa degdeg in loo fuliyo dilkaas halkaas ayaan u gudbayaa eedeysanaha shanaad ee lixaad cabdiladiif aadan cali cabdiladiif si gaar waxaan ugu eedeynay cabdiladiif qayb kama ahan dilka laakiin shabaab uu ahaa soo shabaab ku ahaa wiilkiis gabadhiisu wuxuu ku darsaday aadan isaaq yarow si loo helo xogta ciidanka yaa ka dambeeyey marka inuu waxaas ay dhacaan xaabsada cabdiladiif aadan oo shabaab oo horjooga oo dhagarqaba ah ayaa ka dambeeyey linkiga marka oo miinada ayaa laga abuuray halkaas balse asiga miinada maadaama uu soosan qaadin oo gacantiis ku soo qaadin wax shaqo uu ku leeyahay ma lahan marka waxaan codsanaynaa asigana waxaan ku soo eedeen qodobka lixaad faqradiisa labaad oo ah shabaab mabda ahaan ma aaminsan haa baad ma qaada haa jannaale soo ka dhig baaduu ka aruuriyaa ummadda masaakiinta uu ku dhibaateeyaa kawaan dhan oo asiga mas'uul ka yahay wixii ka soo galo dhan oo qawaaridtiisa mudul gudoomiye 14aad wiilkiisa shabaab waaye ummadda laayay oo horjooga ma sheegin waajibnimada waxay sheegaysaa in la sheego qawaaridta waxyaabaha ay sameeyaan 14aad sheegay xeerka dagaalka argixisada 18aad ka qayb qaadasho ma dhacday wuu ka qayb qaatay askarigan in la dhaxmaro gabadhaas inuu ku daro oo wiilkiisa amarkiisa u yeelo ayuu ka shaqeeyay mudul gudoomiye marka 21aadna way dhacday uu gacan siiyay
gacansiinta miinada wuu ka dambeeyey maadaama khawaarijta wiilkiisa soo sheegi waaye waxyaabaha waa askarta ka dhex sameynayaan uu soo sheegi waaye 25aad basaasidna way dhacdayo ciidanka markay janaal soo marayaan anigaan ugu horeeyno inaan imaana xad waa gudbinayo xogtaas maxkamadda imaada xad waa gudbinayo waxyaabaha loo soo xiray kamid ah markuu dambe markuu waxaan codsanaynaa qodobadaas oo dhan inta la iskugu daro xabsi daa'im lagu xukumo odaygaas maxaa yeelay janaala waxay noqonaysaa nabad janaale dhibaato ku hay mudug gudoomiye maxkamadda waa maasantahay qareennada ayaa maxkamadda weydiistay in baaritaan intan ka badan ay kiiskan u dirto waxa abaanduulaha uu ku dhintay allah naxariis waa dhintay shaki taa kama taagno percentage-ka uu xeelalaal soo jeediyey way tusinaysaa inuu abaanduulaha naga dhintay anagoo dhan buu naga wada dhintay allah yarxam laakiin waxa uu ku dhintay inay miino ahayd iyo inay bam qarxay inay ahayd aanan la caddayn waayey sida uu qabo 164 caddaymaha xaqiiqa ku qancidda doorka dhanka keensaday la rabo inuu soo caddaysto ay xaraantu soo caddaysan weyday mudug garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa aniga muwakkiliinteeda waa ciidan qaran oo dowladda u diiwaan gashan xaaladda iyo marxaladda ay ku shaqeeyaanna waa ka wada dheregsannahay tuhun waa soo geli karaa waa sax laakiin tuhunka soo galay wax ku caddaynayo xafiiska xeerlaalinta ma keenin saas darteed inay eedda xeer ilaalinta ka diido xorriyaddoodana dib ugu celiso hawshii qaran ay dalka iyo ummadda ay u hayeenna ay horey u sii wataan maxkamadda waa maadsanta yaa horta gurigaas mas-uuliyaddiisa lahay yaa keenay wax maanta la keenay oo askartii ka mid ah ma jirto dadka meesha la keenay wax goobjoog ka ahay xaradaasna ma jiro oo maanta la leeyahay waxbay haleeyeen mudane guddoomiye kiiskaas waxay ahayd inaan baaritaan dheeraad lagu sameeyo qaybta forensiga la geeyo faraha la soo baaro waxyaalo badanaa meesha ka dhinnaa hadday odayaashaan iyo wiilashaan ay yihiin kuwii dembiga galay waa caddaan lahayd laakiin meesha waxaa muuqato inaa waxoogaa mar hawaaban ay dhacday dhib ma laha laakiin maanta maxkamaddii aan joognaa waxaa kalaa meesha taallo aanu soo gudbaa jibriil wax fal ah oo maanta maxkamadda la keenay horta ma jiro kow waxaa kalaa meesha ka dhacday gabar asiga adeeraas yahay amba asigaas dhalay waxaa la yidhi wiilashaana qabaan horta guurkii goormoo dembi noqday number kow guurkii la guursadaay qofa la guursado amba gabadhayda ha la guursado amba walaalkayga gabadhiisa ha la guursado amba walaashay ha la guursadee goormee guurkii dembi noqday waa su-aal taagan oo la isweydiinayo hebelaa gabadhaydii qabo hebelaa walaashay qaba shabaab hebelaa gabadhayda aan ku daray hebeloo dilay si gabadhahaas asu dilo ninkaas asu dhinto darteed ayaa gabadhayda ugu darsaday waa cajiib waa taariikh maanta soo kortay sharcina ahayn haddii nafteeda kutubada amba shuruucda dalka ay ku qoran tahay nafteeda faa'iida ahaa laheed aniga nool ku faa'iideeyo waa fiicnaa laheyd waxaa u soo gudbaa cabdiladiif waa nin oday ah kawaanley ah degan degmada janaale asigana waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 6aad farqadiisa 2aad 14aad 18aad 21aad 25aad oo xeerka la dagaalanka argagixisada ah xafiiska xeer ilaalinta wuxuu dalbaday xabsi daa'im lagu xukumo maxaa lagu xukumaa wax ma keeno be caddeen markii aad keento oo wax ku filan dadka hortiisa aad ka sheegto ayaa horta qofka xukunkaas waa leeyahay la dhihi karaa asigana qiraal ma ahan maxkamadda horteeda lama keenin hal garsoore oo qiraal ah oo maxkamadda horteeda cabdiladiif aska bixiyene ma jirto qiraal waxaa bixiyaa la yidhi jibriilne horteyda waxaa ka hadlay qiraalkaas iyo 150 xeerka habka ciqaabta ninkii igu horreeyey wax ictimaad ah oo maxkamadda horteeda iska leeyahay mal hal qof oo qiraal maanta maxkamadda hortaagan ma jirto anagana waxaa marqaati ka nahay
maanta wax aan joogno oo keliya ayaa waxna la weydiina sidaas darteed maxkamadda sharafta leh anoo warkii ku dheeraaday waxaa ku soo gabagabaynaa qodobada lagu soo eedeeyey jibriil iyo cabdiladiif wax shaqo ah oo maanta ay ku leeyihiin oo maxkamadda horteeda la keenay number 1 horta ma jirto waxaa la keenay warkaasna maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa xafiiska eedda isku soo eedeeyey jibriil iyo cabdiladiif inay diido eeddaasna ay aqbalin beddelkeedana ay qaadato qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya xoriyadoodan dib ay ugu soo celiso maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta fadhigan maxkamadeed oo ay maxkamadda waqti ku filan siisay waxaa soo xiray ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho